mid waa arinta Somaliland arinteeda waxay soo taagneeday 30 sano marka de hawl 30 sano tiilay ma sahlana in hal subax lagu soo koobo lagu soo dhameeyo ma sahlana waa koow dadkii waxaas ay ka dhaxeeyeen 30 sano ka hor dhibkii dhacay ilaa ay maanta isaga imaan waayay ee xalli waayeen anoo nin kala diyaaradiisa saarnaan tagahan soo xallinaan aydan xaaji suurtagelisay ma garanayo cidda oo kula talisay muxuu ahaay madaxweynaha arintaas kula talisay ma aqaan laakiin de sida oo halkan laga sheegay ragga madaxweynaha talada siiyo la taliyaashiisa yaaba afkaartooda ay muxuu ahaay banaanka taalaayo meel walba ka sheegabo خائنين أهاين ذلك كلا جوين إن العقاب أو محكمة لصاروا واي مديرة يمديرة هو بكل دعي وحدة كاسكو دعي ما أنت دعي صحي أهيد بإنسان لا يرى أهيد يرى يضد وعدد كم العيونات من عيا كفرني أو لا تاني أو ورك وشاب أو يرجع مدة كقاط أو محنكر هذا عقل أو ضمت هذا وحمرنا intaas dadka Soomaaliyeed inay wax fahmi karaan dadkaas Soomaaliyeed ee dhulkaas degan laba qabiilo isdirtay lama ahayn maxaan ku yiraahdaa lama ahayn reer ku duulay iyo deegaan ku duulay lama ahayn dawlad dadkeedii iyo dalkii qaybo ka mid ah inta qaadatay xasuuqday ay ahayd dabcan marar badanna waa la wada sheegay dawladdaasi dalka oo dhan iyo dadka oo dhan dhibaato u geysatay laakiin waa si kala duwan tahay meelan meeshaas ahayn oo dalkan oo diyaarada lagu duqeeyay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo magaalooyin dhan dhulka la dhigay oo la xaaqay oo laga dhigay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo dadku ay maxaan ku yiraahdaa xawaalo wadareed iyo maalin walba la soo qodo la arkay dalka qaybiska kale waa jireen dad badan oo Soomaaliyeed kuwa dawladda ceelasha u sumeysay baraagta kuwa maxaan ku raadayay farxumo iyo muxuu ahay magaciisa lagu rakacay kuwa akhyaartoodii iyo odayaashoodii la dilay kuwa maxaan ku raadayay si oo yaani aan fiicneen loola dhaqmo waa badnaa laakiin wixii ka dhacay waqooyiga Soomaaliya waxay ahayd wax wadabar u tumanay oo xaajo gooni ahayd marka waxaan aad iyo aad u garawsanahay inay mudan tahay si gooniya in loola macaamilo si gooni loola macaamilo aan midowno aan isku darsano aan hal dal noqono waa waxa wax ugu fiican oo aan jecelnahay ilaahay idinkiis waa qaba ana qabo dadka intiisa badanaa qabo laakiin midnimadaasi siday ku imaan kartaa la rabaa aqli iyo wanaag iyo nidaam iyo walaalo ay ku imaan kartaa dagaalkaas iyo xumaantaas dhacday 30 sano ka hor kadib wax weyn oo hadda koonfur iyo waqooyi kala gaaray ma jirin laakiin tiyaa gudnaa waa arkaysa bariyahan oo dhan markii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya geynay meeshii la yiri wixii ka dhashay yaani dhaawacyadii iyo boogtii dib inay u xogantay oo dib looga dhiijiyay oo dib maxaan ku canaaniyadeedii iyo xanuunkeedii dib u soo wada kacay waa dhageysanayeen waa arkayseen ninka dhalinyarada ah ee bariyahan oo dhan maxaa ahaa hadaladiisa la hadalhayay ee dhahay reerkeena aniga kaliya ka nool anigu cunugii oo cararayaan muxuu ahaa reerkii oo la laayay oo la dilay oo maxaan ku yiraahdaa ay diyaarada inta naga daba timid ay nabada duqeysay aniga kaliya adeerkay soo kuriyay anaa nool walaal markaan arko wiil hooyadiis hooyo ay leedahayna waa xumaada markaan arko nin walaalkii oo walaal leh oo garab taagayna waa xumaada marka waxaasi waa dhaceen hadda wiilkaasi waalidkiis iyo walaalihiis ma soo noqonayaan laakiin si uu uga qanci karo uga daawoobi karo oo qalbigiisu nadiif u ahaa karo oo tabashadaasi ay u baabi'i karto u daawoobi karto oo u cafi karo waxaas dhacay oo uga imaan karo oo wax ka wanaagsan wixii dhacay inta uu arko oo uu qanci karo uga gudbi kara lama iloobi karo wixii dhacay waa ka hor muqdal laakiin waa la cafi karaa waa laga gudbi karaa go'aan lagu gaari karaa in maxaan ku laakiin wixii dhacay wax ka fiican waa qofka inuu arko oo go'aan u gaaro taariikhdaas hore inuu inta iska gooyo iska reebo maxaan ku midan cusub ee hadda socota oo jaan qaado marka waxaan leeyahay
madaxweynuhu garaawshii Soomaaliland uu ka dhiibayna bilow fiican waa fiicnaan laakiin ma dhamaystirnayn gadaal wuxuu uga cadfay oo gadaal uga xiranay ma fiicnayn dadkaas ayagaa la laayay ayagaa la xasuuqay ayagaa la waxay cidda ay cudurdaar u bixinayaan waxde oo la fahmi kara ma waa waxyaabaha oo madaxweynuhu ay fiicnaan lahayd inuu sharaxaad ka bixiyo cidda ay cudurdaar ilaan beel la dirta ma ahayn oo reer heblow annagu ay cudur daaranay adikana noo cudur daarta la leeyahay ma ahayn marka cidda ay cudur daaranayaan ayadana waa fiicnaan lahayd si loo ogaado madaxweynuhu ka bixiyo dadkaasi hal statement oo meel laga sheegay kuma daawoobayaan horeyaa loo soo sheegay annaga dhammaan raalli ahaada waa ka xunnaa waa ka cudur daaranayna kuma ay daawoobi kuma filnayn marka wax ka weyn isi ka mug weyn isi ka qaab weyn u baahan tahay wixii maxaan ku iyo waayaheedii u baahan tahay iyo muxuu ahaa qaabkeeda loo xiro marka taas waxaan qabaa arrintaas arrin xoogaa magaca jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo gaar ahaan dawladda maanta jirtaaba xoogaa ka sibqatay noqotay meel haddaadan uga raay karin loogama daraanayla boogihii haddii aadan dhayi karin oo daaweyn karin oo bogsin karin inaad dandanqiso maxaan ku irahdaa jukayso waa laga fiican yahay leenahay markaa walaalahaasi hawshooda waa Soomaaliya oo dhan iyo mas'uuliyadda mustaqbalka iyo intii timaado oo dhan u taala aad ayaan ugu kalsoonahay in ay wadada saxda ah la soo maro xal weyn laga gaari doono oo raadin isluuday taas marka meesha rabaa inaan uga hadlo mid kale soo hartay dadka dawlad maxaa lagu yahay qarniga 12aad waliba dawladdu maalin meel ay soo martay maalin ay muxuu ahaay boqorro iyo maalin maxaan ku iraadaa nin xoog badan oo ciidan haysto iyo maalin ay maxaan ku iraadaa askari muxuu ahaay inqilaab sameeyo xoog ku qabsaday iyo maalin hadda adduunyada waxay soo gaartay askari hadduu dad xoog ku qabsado lama aqoonsanayo lama aqbalayo ma la aqbalayn caalamku inuu yiraahdo ururka midowga Afrika uu diido igada ay diido iyo meel walba laga diido xoog aad ku qabsato raasaco dadka xoog lagu mahaysan kare maanta maalinna konton iyo dhowrka dawlad Afrika joogto intooda badan askar ka talin jirtay marka waayuhu waa socdaan haddaad ka gaabiso waa sideedo kale madaxweynuhu marar badan wuxuu ku celceliyaa waxaan xuduudaha dalkan soo xirin dalka dariska qaarna waa xun yihiin qaarna waa fiican yihiin siyaasaddu saaxiibo iyo jacayl gaar ma laha waliba dawladdu danay matashaa danahaasay ku xiran tahay qofka isku fiicnaanayaan iyo qofkaan isku fiicnaanin danahaasay ku xiran yihiin aad iyo aad ayuu madaxweynuhu ugu celceliyey maalin dhaweyto dawladda Kenya cadow inay tahay in ay waxalaysay in laga maarmay in laga waxay waa isku xunnaa iyo fargelin ma garanayo aniga dadka Soomaaliyeed ayaa ku habboon inay ka jawaabaan meesha Kenya ee cadow aan la soo gali karin ay noogu tahay Eritrea iyo ninkaas 40-30 sano iyo jajarka joogaan oo xabiib maxaan ku idaaye oo noogu yahay waa ayadana garashay u baahan tahay waxaan rabaa inaan sheego kale maalin arrinta badda sababteed Kenya iyo dawladdeena iyo dawladda Kenya isku hayaan wuxuu sheegay arrinta badda ayadoo maxkamadda taalo ayaan Kenya isku fiicnayn isbooqanaynay isu imaanaynay isu waxaynay maxkamadduna ay taagan tahay oo qadiyadeeda ay taagan tahay oo waliba aanan muxuu ahaay aad la isaga warwarsanin oon laga hadlin soo marnaan joognay waayeen maanta marka maxaa keenay maanta waxaa keenay madaxda dalkeena ayaa arrinta badda si xun u isticmaashay dawladda Kenya ayaga oo carab laadiyay ayaga yiri xalan gaarina maxkamadda banaankeeda lagu xalinaa hebelow muxuu ahaay waxay dal hebelow muxuu ahaay soo bax gacanta ka qabo wad Nairobi fatax ka sii cawdado daji maxaan ku iraaday waa xalinaynaa waxa sideedaba curfiga diblomaasiga been lagama sheego diblomaasiyadda ma gasho maanta been ka sheegay Britain iska baxmaya ma gasho diblomaasiyadda ma gasho ballan ogtahay inaad fulinayn inaad qaadid madaxweynaheena ra'iisul wasaaraheena way ogaayeen arrinta badda inaanay maxkamadda ka soo celin karin dadka Soomaaliyeed aan ka aqbalayn sabab ma jiro marka Kenya ugu carab laadiyaan ay dad badan u geliyaan oo inta xal laga raadiyo ay dhahaan oo bal dib ha loo dhigo muxuu ahaay si aan xal u helno dacwada dib ha loo dhigo aan isla dhahno anaga iyo Kenya ilaa anaga kaliya dacwada dib uma dhigi karin Kenya kaliya dib uma dhigi karin waa isla dhahno
dacwadu waa siyaasadeyn ra'iisul wasaare ku-xigeenkeena iyo madaxii mas'uuliyiin meesha u dirnay dad sharci yaqaana iyo farsamo yaqaana loo diri jiray iyo bulshada rayidka maxkamadda loo diri jiray si ay goobjoog u noqdaan oo arkaan u dhageystaan diasporadan loo diri jiray bulshada rayidka ee beledkan joogtaa loo diri jiray dad muxuu ahaa xeer yaqaana iyo shuruucda dowladda wixii sharciga ilaalintiisa u qaabilsan oo xeer ilaalin ugu weyn loo diri jiray laakiin siyaasiyiin muxuu ahaa ma dhex istaagi jirin maxkamadda in wixii hadda campaign siyaasadeed iyo magac siyaasadeed lagu raadiyo ciladaha jiray ka mid tahay Kenya iyo dowladdeena waxay isku hayaan maxkamadda case laga yaala ma aha waa ballamada iyo carab laalaariska iyo rajagelinta iyo ee laga baxay birina laga baxay waaye oo maxaan ku la fulin waaye waa wax la isku haystaa Soomaaliya fahmaarna inta jeerad idaacadaha iyo mas'uuliyad dalal kale iyo meelo kale aad ka maqasheen maxkamadda banaankeeda macaamilaha socdo waa la heshiina oo boqolkiiba muxuu ahaa 40 xagga loo qaada boqolkiiba 50 iyo xoogaa xagga loo qaada inta la kala waxayna